makeup ka markaa rabto inaa marsato number 1 waa inaa moisturizer ka marsataa wejigaaga taas yaraa marsaday wejiga dhan hadda smooth waaye diyaaru u yahay asli pure care waa a pure soddona aniga marsadaa intaan ku dhiijinayaa wax yar intaas keliya marsanaya waxa wejiga dhan inaan gaarsiiyaa laga rabaa intaas yarta ah oo aan marsanayo haddii aad leedahay haaro haddii aad leedahay finan kugu madoobaadeen a pure makeup waxaa ku jiro concealer iyo foundation isku jira waaye cajiib waxaan ku bilaabayaa indhaha hoostooda waa usoo noqonayaa markaas wejiga intiisa kale inta waxaa ugu bilaabaysaa wax yar inuu down uu galo muhiim waaye yaa concealer ku jiro waana exactly halkaaga kalar waaye qof walba hal kalar ayuu marsanaya wejiga dhan isuu smooth u noqday muujeedaa maxaa yeelayo marka hore face washaan ku dhaqay waa nadiif marka xigto kareemkaas moisturizerka ahaa marsaday yaa moisturizerka marsaday si uu wejiga iiga qalalin ama make-upka hadhow uusan iga waxaysmin waxaa u malaynaysaa inuu kareem kuu marsan yahay marka waxaa samaynaysaa saas uguma jiijiidaysid yaa saas uguma jiidaysid haddii kale skiinka guduhu gelaya make-upka waxaa loogu talagalay make-upka laguu sheegaya dhan waa foundationka hadduu kaa xun yahay ama uu low quality yahay make-upkaaga hadhow wejigaaga proper qurux badan ma noqonaysid maasha allah gabdho badana iga codsaday roob hadduu kugu da-o haddaa isku dhididid qofka hadduu kululaado hadduu dhidido meel waddan kulul uu joogo ma kugu dardaryanayo make-upka lagu sheegayo waa foundationka haddii uu yahay proper colorkaagii adiga lagugu talagalay hadduu yahay oo aanan dry ahayn rinji badan ahayn wejigaaga dhan markaa marisid smooth nice shacni dhalaal iftiin gold xitaa uu shine garaynaya kadib hadda waxaan marsanaynaa banana powderkeena ama setting powderka setting waa la fariisinayaa make-upka waa lagu fariisinayaa setting powderka wax yar indhaha hoostooda saas u marinaysaa indhaha hoostooda si uu hadhow attractive u yeesho inta aan suniyaha samaysanayo uu halahaas ku oolaayaa hadhow inta kalena markaas kadib aan marinaya suniyaha marka noo dhiman ila socda suniyaha ani waxaa isticmaalaa brown colorkan pencilkan oo brownka ah aan isticmaalaa madowga zaa'idka ah ma jecli yaa suniyaha sida ani aan u samaysto qof walba different u samaystaa sida aniga aan jeclahay oo u samaystaa idin tusaya laakiin muraayadan u baahanahayaa raalli ahaada muraayadan u baahanahay
ujeedaa saan u sameeyey sunniyihii markaan saas u sameeyo shanladaas yar aan ku shanlaynayaa aada u simay xataa concealer in lagu saxo sometimes ma u baahna ma ujeedaa ma arkaysaa sunniyaha saan u simay waxaan marsaday number 10 asli pure foundation number 10 ayaan concealer ahaan sunniyaha qofkii raba inuu toosiyo oo aanan garanaynin uu ka qalqaloocdo waxaa ku sixi kartaa concealerka adag indhaha korkoodu barariyaa ma fiicno ani waxaan isticmaalaa number 10 midka amarsadana waa number 30 kalarkeyga waa 30 indhaha korkoodana waxaa mariyay midkan waxaa mariyay number 10 aan ku saxay kan kala haddana saxaya insha allah fiiri midka hadda aan wax yar aa soo qaadaysaa cornerkaas ujeeda ma ujeedaa ma ka badbadinaysid maanta dha haddaa gacantaada ay gargariirto oo meeshaas mari aa maagtid wixii dhanaa kaa halaabayo bes kadib hoosa usoo dejinaysa khalaas haddaa maanta dhan dadaa ku celceliyo wax lee kaa qaldamaayo ma ogiya haddaa ku celcelisid oo gacantaada ay gargariirto dhib waaye hadhow wixii dhan waa kaa halaabayaan hadda dhinacan waa marinay inta iyo inta waa marinay haddaan rabno kor waa iska daynaynaa that's too much ya haddii aad rabto saasaa ugu fariisinaysaa bes sunniyihii waa kuu saxan yihiin maqalqaloocno waa isla eg yihiin ma aha inaa mashruuc ka dhigtid oo maanta dhan sunniyo yar aad ku mashquusho haddaa meel special ah u socotid korna waa marin kartaa meel muhiim ah haddaa u socotid korna waa marin kartaa korna sidaas si la eg iyadana ma ujeedaa saasaa u marinaysaa ma ujeedaa hal maraa laynka saas u marinaysaa kabacdi kor a uga kaceysaa si aan loo fahmin in aad make upka foundation kala kalar ah inuu kuu marsan yahay si aan lagu fahmin ilaa korkaasaa gaarsiinaysaa qaybtan kalean haddana marinaynaa mujeeda ayadana maanta dhan haddaa ku celcelisid wixii dhan way halaabayaan hal mar gacantaada waa gargariire hal mar laynkaas bes mari sunniyihii ma arkaysaa hadda quruxay noqdeen way isla ekaadeen hadda ayadana wax yar waa ku baabi'inaynaa kadib haddaan rabo buraashkaygaana isticmaalaya weyn wixii yaraa kaa haray meeshaasaa marinaysaa waa foundation number 10 waa qofka soomaaliga ugu cad midka uu qaadanayo waaye
aniga qofka Soomaaliga ugu cad ma ihi number 30 qaata waxaan noo marsanaa setting powderkii oo ku baabi'inayna setting powderka waxaa ku shubanaysaa caaga ama hadaa rabto saas markaa u furto saasaa dhehaysaa mujeedaa setting powderka setting powderka wuxuu kuu fariisinayaa make upka hadda waxaa noo dhiman eyeshadow yar oo classic ah eyeshadowga asli pure wax yar kalarkaana marsanaynaa maadaama qamaarka aan wato uu u eg yahay mar kasta waxaa ka bilaabaysaa cornerka ujeeda mar kasta cornerka ka bilaabo si ay xisaabta kaaga qaldameeyaa kan markaa mariso dhinaca kalena horay ka mari haddii kale xisaabtii aad kaa qaldamayso markaa marisid kalarkaanaa mariyey kalarkan dhalaal kuma jiro qaybta dhalaalka hoos waaye mujeedaa wax yaroo simple ah marka hore kalarkaana horta kow aan marinayaa markaa qaybtaas mariyey saasaa marka aan xoogaa meesha isha ka laabanta markii saasa la dhaho ma aragta saasaa ugu wadaysaa wax yar dhowr noocaa jiro oo loo mariyo eyeshadowga laakiin sida ugu fudud oo aad ku fahmi karto aan kuu samaynayaa isha kalena isla markii sida aad tan yeeshay waa inaa yeeshaa ma arkaysaa buraashkaa qaadanaya marka saasaa ku dhehey xoogaa ilaa iyo kor inaa wax yar oo khafiif ah inuu gaaro waaye hoosna inay colorful ahaato korna inay ahaato madow yar haddaan ku dhex qaladno madowgaas mujeedaa wax yar aan ku dhex qaldaynaa waa arkaynaa siduu kusoo baxaayo madowgana cornerka le saaraysaa meel kale ha ku badinin rainbow ma aragtay rainbow in laga dhigaa la rabaa lagu dhex qaldo annaga madow zaa'id ah haddaa indhaha korkooda marsan annaga yaaba madowba wax lagaa arkayo maleh ma fahmaysaa waxay noqonayaan madowgan iyo kalarkii hore oo purple-ka ahaa maasha allah dhinaci kalena waa saaraya asagana mujeedaa dhinacaas waxaan ku sameeyey aan kana ku sameynaa madow yar aan saara asagana si aan ugu dhex qaldo markaan cornerka saas u saaro madow same size madowga iyo kalarkan purple-ka markii la isku qaldo markii la isku dhex qaso very nice highlighterkan asli pure care siyaabo badanaa loo isticmaalayaa highlighterka waxaan sameyneynaa hadda meeshaas marineynaa wow ma arkaysaa how simple sidee u fudud yahay uu easyna u yahay ma arkaysaa
eyeshadowgi markaan waa dhammaaday. indha cool oo kale aan uga dhigaynaa kalarkii aan mariyay meesha kore. ma arkaysaa kalarkaas waa pink oo xoogaa yar. mujeedaa isla kalarkii haddana ishaan kala marinayaa. kalarkan hoosaan marinay, haddana waxaan marinaynaa blaagan. ujeedaa ayaa waxaan marinayaa indha cool camal uga dhigayaa. depend waxay kaloo ku xiran tahay wejigaaga qaabka. haddii indhahaaga ay hoos ay yaryar yihiin, wejigaaga uu yaryahoo kale, mid binkigan hoos ha soo gaarsiinin. ma fahamte? saasaan leeyahay. ma arkaysaa way isku dhex darsameen. waxaan diidayaa idinka inaan idinka qariyo. buraashka waxaan ka baqayaa, buraashkan ku marsana haddaan dhaho inuu isha iga galaan ka baqaaya, maadaama aan idinka wax idin tusaayo. marka gacanteyda walaakin waa cabiri karaa. ma fahamte? ma arkaysaa sida aan u marinayo madowgii iyo markii la isku daray binkigiisay noqdeen. very nice. maasha allah, tabaaraka allah, xasbiya allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabbulcarshi alcadiim. aad uu u qurux badnaaday marka la isku daray madowgii iyo kalarkii kale. eyelinerkii aan jeclaa very thin ahaa, asli pure care. maasha allah. maanta ma samaynayno, qasab ma aha markasta in afrikida maaragtay tileka ama saynta inaa u samayso, qasab ma aha. ishaan iyo ishaan differenciga. dhinacan kale haddana marinayaa. waqtigayaan idinka qaadin. aada u dhuuban yahay, ma aha wax buurbuur kaa noqonayo. ma aha hal mar sida qalinkii oo kale aasaas ugu marinaysaa. ma ujeedaa? meesha ugu dambeysa qasab ma aha inaad u samaysid sayn ama tile ama maaragta waxaa la dhaho, qasab ma aha. maskaaraadiyaa noo hartay. maskaaraada waxaan u baahanahay inaan aada ugu dhaweeyo bahalka. inaan aada ugu dhaweeyo muraayadda, haddii kale indhaha iga gelaysaa intaa idinka idin fiirinayo. hoosna wax yar aan saas ku leeyahay. wow, arag markaan. make up fadhiyo oo edab daran soo ma. maasha allah. waa full make up oo dhammaystiran. foundationkii, botterkii, eyelinerkii, eyeshadowgii, highlighterkii, maskaaradii, eyelinerkii. waxaan sameyneynaa wax yar oo contour ah. waxaan isticmaaleynaa midkii aan eyeshadowgii aan kor ka mariyay ayaan in yar isticmaaleynaa. dhibic iyo dhibic.
waxyar make upkii macno yar u yeelanaya. Markii hore waa isla cadeed, hadda meesha anaga brownka ay ka marsadaan dadka cadaanka, anaga brown anagaaba brown ahbo ya. brown wuu ku jiraa make upka. indhaha korkooda loogu talagalay marka hore in lagu set up garay. kalarkan everyday waa marsan kartaa. laba kalar oo very classic ah waaye. maxaa noo dhiman highlighterka inaa waxyar ku fariisin. arag siduu isu bedelayo. kadib make upkeena wuu dhamaaday. highlighterka meeshaasaa marineynaa, meeshaasna waa marineynaa. wuxuu kuu sameynayaa xoogaa yaroo sanqaroor ah. waxaa kaloo sameynaysaa waxyar brushkaasaan saas ku dhahaynaa. wow. highlighterka waxaa dhiman meelaa dhiman important waaye. meeshaas maxaa loo mariyaa? wuxuu kaa dhigayaa qof gar dhuuban, garka dhuuban xoogaa yar attractive waaye. iyo wejiga meelaha oo maaragtay attractive-ka ah ay ka mid tahay. make upkii oo complete ah. highlighterka waxaa kaloo ku dhiman cornerkaas meelaha attractive-ka oo wejiga indhaha qabanayaan waaye. laakiin eyeshadowgii iyuu kaa soo gaarin, ma fahamti? eyeshadowgii iyuu kaa soo gaarin. intaas yaraa simple ah. maasha allah, very classic. waa make up yar oo fudud oo aad u qurux badan oo skin colorkaada maajgareynayo. colorkaaga in loogu talagala umaleysaa. everything waa asli pure care. kambanigii loogu talagalay skin colorka, brown skin colorka, hadday tahay dadka madow, hadday tahay soomaalida, skinkeena loogu talagalay. kasoo bilow foundationkii oo aan number 30 waa asli pure care. banana powderkii waa setting powderkii aan ku fariisiyey waa asli pure care. highlighterka waa asli pure care. indhaha aan mariyey iyo sanka
lipstick labadan xabaan isku daray labadan lipstick isku daray color qurux badan ay kasoo baxay mascaradan indhaha midda aan marsaday waaye eyelinerka indhaha korkooda midka aan mariyay waaye meeshaas madow wow eyeshadow palette-ka don't forget everything waa asli pure care maasha allah kambanigii soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee sameeyo make up complete ah iban waxaan dhihi karaa kambanigiiso ma aragtay ugu horeeyay oo afrikaan ah ama black skin color ah oo sameeyo foundation iyo concealer isku jiro setting powder oo banana powder ah oo anaga skinkeena match gareynayo mascaradii lipstickii oo dhowr nooc ah intaasoo nooc kala ah lipsticka meeqa color waaye aaday u badan yihiin kalarada ma u baahnid in aad banaanka ka doonatid wax make up ku saabsan hadday tahay foundationkii hadday tahay powderkii hadday tahay lipstickii hadday tahay eyelinerkii hadday tahay mascaradii hadday tahay highlighterka oo aad aan u jeclahay midka aan inta mariyay waaye noska sanka mariyay labada meel foreheadka meesha wejiga attractive-ka indhaha qabanayaan eyeshadow palette-kana la-aanteed waxba maba suurtageli lahaynba make up-ka dhan wuxuu noqon lahaa mess isku darsan uu noqon lahaa eyeshadow palette-ka aad iyo aadan u jeclahay maasha allah waa 16 kalar oo anaga skinkeena ah haddaa rabto contour xitaa ka dhiganaysaa kalarada lipstickyada laftigooda waa kana 6 kalar waaye oo anaga skin kalarkeena match gareynayo ma ahan kalar la iska soo sameeyay ma aha eyeshadow palette-ka iyo lipsticka aad isu match gareynayaan mujeedaa wow eyeshadow palette-ka iyo lipsticka aad isu match gareynayaan annaga skin colorkeena loogu talagalay qofka cad Soomaaliga qofka madow Soomaaliga qofka brownka Soomaaliga ah qof kasta match gareynayaan oo skin colorka balaaga ama african colorkeena ah skin tone laftigiisa toonka gudaha waxa laga sameeyay wax annaga hadda skinkeena ah waa wax kala dhaqaaqayo oo markaa qosashid wax indhaha hoostooda wax soo kuduudanayo oo soo ururayo male indhaha hoostooda meelahan make up-ka markuu yahay ama rinji badan uu ku jiro ama very low quality uu yahay oo qualitygiisa uu xun yahay waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah markaa marsatid wax yar aad sheekaysid meeshaan dhan way jabaysaa line ku samaysmaayo inta line ku samaysmaayo indhaha hoostooda waxay noqonayaan coor camal lines ay sameynayaan make up-kaas adiga skin colorkaada ma loogu talagelin definitely rinjiga ku jiro waa very heavy rinji oo culus ah lagu daray make up-ka sidan hore idinkugu sheegay waa arto waaye ya sida diraca iyo googorada iyo garbasaarta iyo jewelry-ga la xiranayo la isugu match gareeyo ayaa make up-kana la isugu match gareeya waa in indhahaaga iyo bishimahaaga iyo wejigaaga inay isleeyihiin wixii aa marisay waaye laakiin make up-ka dhabanadaada in intana madow zaa'id uu ka yahay dadka cadaanka ah ayaa loogu talagalay in ay indhaha eyeshadow-ga ay marsanayaan madow ay ka dhigtaan maxaa yeelay ayagu way cad yihiin annaga laakiin kalarkeena waa brown wax annagana attractive ah oo na soo saarayo waa inaa marsataa indhahaaga iyo bishimahaaga lipsticka aa marisay iyo dharka aa xiran doonto waa inay ismatch gareeyaan hadda make up-kan way isqaadan karaan dhabankayga
goldiga inta marsan inta golda ku jiro bishinta meeshaas gold yara ku jiro meeshaas madow iyo purple iyo color isku qasan bishinteydana waxaa marsan madow iyo purple isku jiro oo maaragtay laba lipstick isku daray hoosna kana mariyay korkaasna kana mariyay ma fahmaysaa maasha allah very classic makeup kan oo dhammaystiran website-keena waa ka heli kartaa haddii aad rabto telefoonkeena whatsapp-ka waa naga soo wici kartaa waa ka dalban kartaa adduunka meel kasta aad joogtid qofkii rabo waa loo soo deliver gareeyaa waa a pure makeup waa asli pure makeup hargeysa ka helaysaa nairobi ka helaysaa muqdisho ka helaysaa london oo xarunteena xarumaheena dhan ka helaysaa maasha allah tabaaraka allah waxaa soo socda samarkii waxaa muddo guryaha lagu jiray qof kasta wuu soo baxayaa dukaamada waxaa lasoo dhigay dhar qurux badan oo very attractive ah oo colorful ah lasoo dhigay waxaa la isu diyaarinayaa samarkii annaga maxaa noo diidayo in aan markaa ummadda dhexgelayno in aan finankeena madowgeena haaraheena xoogaa yar maaragtay naturalka in aan iska yaro aan isnaashnaashno maxaa noo diidayo ya in allaha jamiil yuxibu ljamaal ilaahay wuu qurux badan yahay qofka quruxda badan ama waxa quruxda badanna uu jecel yahay markaa ummadaada dhexgelayso iyo haafto in aad maaragtay inaa wax yar isnaashnaashto oo sidii hooyada kugu dhashay inaadan ummadda lasoo dhex fariisanin ama inaadan wadada la marin wax yar midda kale muhiimka ah qofka markuu isqurxiyo ama ishagaajiyo macnaheedu waxay tahay maskaxdiisa ama happiness-kiisa wuxuu noqonayaa high asagoona is ogeyn niyadiisa waxay noqonaysaa very high confidence-giisii ama isku kalsoonaantii uu isku kalsoonaa waxay noqonaysaa very high markuu qofka fiirinayo xitaa wuxuu u fiirinayaa si maaragtay gentle ah oo kalsooni ku jirto u fiirinayaa laakiin u fiirso marka uu wejigaaga ama aadan qurux badnayn ama xitaa aadan dhar qurux badan wadanin dadka markaa dhex soo dhex gashid wax yar waa foorarsanaysaa maaragtay dadkii wuu indhaha kuma dhamayn kartid marka asli pure care waxay samaysay foundationadan waa concealer iyo foundation isku dhex jiro iskuma qasaysid laba foundation qof kasta oo Soomaali ah wuxuu isticmaalayaa hal color maxaa yeelay skin tone-kaaga colorkaagii loogu talagalay waaye laakiin foundationada kale ama makeup-yada kale kama helaysid exactly colorkaada gabdhaha waxay ka cabanayaan foundationka marka meesha aan joogo oo la ii soo mariyo waa qurux badanahay marka aan kasoo tago oo guriga imaado oon marsado waxaa isula ekaanayaa ghost so waa 30 waxay kala yihiin 10 20 30 iyo 40 ya 10 qofka ugu cad Soomaaliga 20 qofka ku xigo 30 waa aniga kalarkayga maariinka u badan Soomaalida 40 qofka Soomaaliga ah oo ugu madow masha Allah waa ka faa'iideysan kartaan waa dalban kartaan telefoonadeenna halkaas aan ku soo qoraynaa insha Allah waxaan bilawnay YouTube channel-keena inaan maaragtay active ka dhigno oo dad badan oo aanan haysanin Facebook gabdho badan oo customer ah dad badan oo qiimo badan oo aanan Facebook isticmaalin ayaan ugu talagalay YouTube-ka inay ka faa'iideystaan ayagaana iga dalbaday for long time YouTube channel-kayga waxaan sameeyay 2010 miya ama 11 aan sameynay ilaa hadda waxaan soo gelinayaa videoyo oo maaragtay kala duwan marka adiga hadduu kugu cusub yahay oo aadan YouTube-ka nagala soconin fadlan YouTube-keena subscribe dheh haddii uu ku soo gaaro waxaa ka baran doontaa waxyaalo badan oo quality leh waxyaabo badan oo faa'iido ku leh waqtigaaga ma khasaari doono saaxiibadaana u gudbi belka daaro like garay asxaabta u share garay commentiga hoos noogu dhaaf dhiirigelin ay noo tahay wax badan oo faa'iido laha ka faa'iidi doonto macana wa macakum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh